maanta oo khamiis ah banaanbaxyo ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee Somaliland waxaana banaanbaxayaasha hogaaminaya xisbiyada mucaaradka Somaliland. Aroortii hore ee saaka ayaana lagu waabariistay mudaharaadayaal fara badan oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee Somaliland, kuwaasi oo wadooyinka ku gubaya taayiro kuna dhawaaqayo erayo ka dhan ah xisbiga talada Somaliland haya ee Kulmiye. dhinaca xukuumadda Somaliland wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu wadaa kulamo isdaba joog ah oo looga tashanayo sidii ay dawladdu banaanbaxyadan u xakameyn lahayd. sidoo kale wararka aan ka helayno gudaha Somaliland ayaa sheegaya in guud ahaanba internetka laga jartay Somaliland marka laga reebo xarumaha dawladda oo iyadu adeegsanaysa warbaahinta haysatana internetka. tilaabadaas ayaana ka dhigan inaan si sax ah loo ogaan karin waxa ka socda gudaha Somaliland, waxaana muuqata in xukuumadda Somaliland ay xoogga saartay sidii ay u fashilin lahayd banaanbaxyada ka socda gudaha Somaliland. sidoo kale dadka aragtidooda ka dhiibtay internetka ay dawladdu ka jartay banaanbaxayaasha ayaa qaba in banaanbaxayaashu ay si weyn isugu soo bixi karaan maadaama dad badan oo guryahooda ka daawan lahaa aysan haysan internet, taas beddelkeedana ay isaga soo bixi doonaan guryahooda. waxayna qabaan inaan internetka laga jaran banaanbaxayaasha si loo yareeyo dadka isaga soo baxaya guryahooda. marka la eego qodobkan waa mid macquul ah una baahan in si dhab ah looga doodo oo la qiimeeyo khasaaraha iyo faa'iidada ka iman karta internetka laga jartay banaanbaxayaasha. sidoo kale xukuumadda Somaliland oo u muuqata inay wax ka qaban weyday banaanbaxyada ka dhacaya Somaliland ayaa u muuqata mid awoodeeda isugu geysay sidii loo wiiqi lahaa siyaasad ahaan banaanbaxyada, taasi oo u aragta in internetka oo laga jarto si weyn loogu niyad jabin karo xisbiyada mucaaradka Somaliland. dhinaca kalena waxaa jira warar sheegaya inay jiraan dhaawacyo iyo khasaarooyin ka dhashay banaanbaxyada ka socda gudaha Somaliland, walow aysan jirin cid si sax ah xog uga haysa marka laga yimaado wararka suuqa yaala. sidoo kale khilaafkan u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo xisbiga talada Somaliland haya ee Kulmiye ee sababay banaanbaxyada waaweyn ee ka dhacaya Somaliland waa mid aan horay uga dhicin Somaliland, waxaana la isku hayaa arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay furista xisbiyada iyo qabashada doorashada, waxayna xisbiyada mucaaradku si weyn u diidan yihiin in la furo ururada asxaabta halka ay ku doodayaan in la qabto doorashada waqtigeeda. dhinaca madaxweyne Biixi isaguna waxa uu xilligan door bidayaa inuu furo ururada siyaasadda isagoo durbaba dhowr xisbi ka daafuray gudaha Somaliland. si kastaba ha ahaatee lama oga waxa ay ku dhammaan doonaan khilaafyadan siyaasadeed ee ka taagan Somaliland, waxaana la filayay inay maxkamadda sare ee Somaliland go'aan ka gaadho, laakiin go'aankii maxkamadda sare ee Somaliland ayaa noqday mid labada dhinacba gar siinaya, iyadoo maxkamadda sare ee Somaliland ay sheegtay in xisbiyada mucaaradka Somaliland ay xaq u leeyihiin inay doorashada waqtigeeda lagu qabto. dhinaca kalena dawladdu ay fudho ururada inay tahay wax xaq ah waqtigii lagu heshiiyeyna la joogo. maxkamadda oo laga sugayay inay rido xukun toos ah ayaa ka gaabsatay, waxa uuna noqday go'aankeedu mid labada dhinacba gar siinaya. lama oga waxa uu ku dhammaan doono khilaafkan siyaasadeed ee ka dhex taagan xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo xisbiga talada Somaliland haya ee Kulmiye. sidoo kale lama oga xilliga ay dawladdu dib u soo celin doonto internetka oo ay hawada ka saartay saacada kadib markii ay magaalooyinka waaweyn ee Somaliland qabsadeen banaanbaxyo waaweyn. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Somaliland.